السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوا على channel كيغا ديقسن official. إلهي وروح والبو channel كيغا فرح. سبسكرايب في سارة. إلهي وروح كفرحة. الآخرة والدنيا. كسار يا رب العرش الكريم. اللهم آمين. ما كان ما أنتم عاويين. والchannel كبر بوستية. أنا قوم محمد جيل جر سوبا مامولك الشباب وحن uga shaqay jiray sikada qaadowgeera iyo tawarucaadka intii 10 sano anigoo nabadoon qabiilna sikana qaadaya waxaan ka aruuri jiray soono jowhar burka ama bareeyo ilaa intuu dhaxaysa dabagaab raagceel inta ka sukaysa isbedel waxa ii muuqdo waxtar oo waxgal oo maaragtay oo wanaag ka muuqdo anigana hadda mugaas aan saas dhaxayay ma isqarihayn ma leexleexayn ma dhaqaajihayn ma gagambahayn waxaan ka rajeeyaa nabadgelyo iyo wanaag iyo wadajir iyo gobolka nadiif waxaan ugu baaqayaa shabaab gobolkiisa waa dhacay dheedkiisa waa dhacay waana u dhamaatay ragga meelaha ku maqan oo hadda waaga meelaha dhuumaaleysaya waxaan u dirayaa baaq inay fikirkii awal ay haayeen ay markaas dib uga soo naqdaan dadka hore ay u yimaadeen dadkan dadkoori waayay fikirka la dhacsiina wax jira ma ahan diintii habarta iyo adooga ay ku dhasheen ku dhaqan jireen wax ka bedelan wadankan ma yaalin nima waxa lagu xiray wariya geerka xad u xirtay geerkaaga xad u xirtay geerkayga ma ani qof igala talasa jirta hadaan rabo waa xiira hadaan rabana waa deysaha waa gartay waxa lagu yiri ilmaasika ka keen haruubo waxa lagu yiri hadan beertad maanta dhaweed gadatay ka keenaa lagu yiri wixii geeri beertad maanta dhaweed gadatay oo 10 sano 20 sano ka hor intaana shabaab wadanka imaanin beerihi la geday lacagtoodi keen horta meesha taal shabaab meeshan isxaan ma dhigan mana u yaalo haddana waana ka daba madowna halka meelaha ku dhuumaaleysay halka isoo dhiibana haysata male dadkana uu kamid yahay dadka kaleentana oo dhuumaaleysana waa ka daba taagan maalmaha waxaan maartay howlgal ka wadnay tuulada warciisa iyo wardagax muddo 3 maalmood howlgalkaas oo lagu nadiifiyay haraadiga ka helay nimankii qawaariijta ahaa oo ummadda dhibaatada u geysay wadankan alxamdulillah waxaa noo suurta gashay in dad badan oo kamid ah dadkii maartay la shaqeeyay nimankii nabadiidka ahaa ama ha u qaadaan ku hanaqdaan kuwa sakaawaadka aruuriyo oo xoolaha dadka ka qaado dadka dhibaateeyo ama ha naqdaan kuwa hore u dhibaateeyo dad badan oo deegaankan kamid ah ciidamadii macaawisleeyda oo guryahoodii iyo xoolahoodii in la dhac ka shaqeeyay guryahoodana in la guba ka shaqeeyay iyo kuwa kale oo maartay ka tirsan kuwaas ayaan maartay qaybo badan oo kamid ah dadkaas ayaa la soo qabtay waana la xiray oo maartay waxay u gudbiyay degmada raagaceel ayaa lagu xiray sida ay u kala daran yihiin hadduu ilaahay ila dambiyadooda lagu kala qaadi doonaa waxaana loo gudbi doonaa maartay meesha waajibaadka looga mari doono xadgudubka ay u geysteen dadka deegaankan degan ama dhibaatooyinka ay u geysteen waxaan u sheegaynaa qofka soo joogta meeshan ama deegaanadan ku sugan oo la shaqeeyayso nimanka nabadiidka hadday xaatee telefoon kaliya kula shaqeyso ma la dhaafi doono waana lagu raad joogaa waana la soo qabado meelaha ii xiran shabaab ay soo waraanaha ku hortaagan hadaadan naga cabsayn manin telefoon durkaas oo waana karaama badan hadaad amarkiisa qaadatay kayna diido kayna socay aniga meesha taagan waana ballan intilaab laga qaado qof waliba ganacsigeeda ha furato si xurriyada ha u shaqeysato shabaab meesha ma joogo mana soo socdo mana soo naqahay qof kastaba si xurriyada inuu u shaqeysatay sharaf ku noolaataan rabnaa aad iyo aad dadka deegaankan joogo waxaan u sheegaynaa dadkii hadda ka hor wixii ka horeeyay dadka u tiftifay ama dadka u rufiyaanay ama dadka maarta wararka beenta u sheegay dad ee ku dhibaatay jira shabaab maalintan ku helno ciqaab ayay la kulmi doonaan sharcigaana la horgeey doonaa qofkii ka baxay yiraahdo waa soo dhiibay waana wixii shalay aan dimbiga aan galan waxaan rabaa in la iga cafiyo qofkii yiraahdana marka dawladda ayada maartay dadkeeda jecel ayada maartay baabka naxariista